ayaa shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya. Mr. Key ayaa ka hadlay hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kaga qabsadeen Al-Shabaab deegaano ay hore u haysteen, khilaafka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya iyo weliba qorshaha higsiga Soomaaliya ee sanadka 2016. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khudbadda Mr. Key warbixintan inooga diyaariyay. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Key ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in markii ugu dambeysay ee uu uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya golaha bishii July sanadka Al-Shabaab ay halis ku haysay ammaanka Soomaaliya gaar ahaan kan magaalada Muqdisho, laakiin haatan buu yiri Al-Shabaab la gaarsiiyay jab weyn. With the death of its leader, Ahmed Godani, on 1st of September, these recent advances have weakened Al-Shabaab operationally and financially. waxa uu yiri dhimashadii hogaamiyahoodii Ahmed Godani kowdii bishii September iyo boolihii military ee dhawaan la gaaray ayaa wiiqay awoodii Al-Shabaab ee dhinaca hawlgallada iyo midda dhaqaale. Madaxkii ayaa sheegay in weli ay taagan tahay baahidii ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya ay u qabeen dayuurado dagaal ama helikobtaro ka taageera hawlgallada inta dhiman, isla markaana ilaaliya sahayda iyo jidadka gala dhulka Al-Shabaab laga xoreeyay. Especially helicopters are still needed, not least to help ensure secure road access across the country. waxyaabo muhiim u ah hawlgalka ayaa jira buu yiri. tusaale ahaan dayuuradaha dagaalka ee helicopterska ayaa loo baahan yahay si ugu yaraan buu yiri loo xaqiijiyo isu socodka iyo ammaanka jidadka isku xira guud ahaan Soomaaliya. waxa uu sheegay Mr. Key in horumar laga gaaray dhinaca siyaasadda iyo dhismaha nidaamka dawliga ah oo hadda ay socdaan dib u heshiisiino iyo dhismaha maamul goboleedyo ku meel gaara, hase yeeshee loo baahan yahay in bulshada laga wada qayb geliyo, dumarka iyo dhalinyaraduna ay saami ku yeeshaan dhismaha maamulada. I reiterate my hope that we will have a new map of a federal Somalia by the end of the year. waxaan ku celinayaa buu yiri inaan rajo weyn ka qabno in sanadkan dhamaadkiisa Soomaaliya ay yeelanayso qadar cusub oo federaal ku dhisan, ama haddii ay suurto gasho marka uu dhacayo shirka caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee lagu qabanayo magaalada Copenhagen ee dalka Denmark bisha soo socota. Madaxkii waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in la dedejiyo laba arrimood. labadaas arrimood oo kala ah dhismaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada iyo guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha. waxa uu baaqay dawladda federaalka iyo baarlamaanka inay sameeyaan qabanqaabada howlaha looga baahan yahay. Madaxkii waxa uu sheegay inuu walwal ka qabo halista ay Soomaaliya mar walba ugu jirto khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgala madaxda dawladda. I remain particularly concerned about the risk of political infighting. waxa si gaara weli igu haya buu yiri halista ay Soomaaliya ugu jirto khilaafka siyaasadeed. 12 bilood ee la soo dhaafay laba jeer khilaafka noocaasi ah wuxuu xuryaamiyay howlaha dawliga ah ee Soomaaliya buu yiri. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa si u maareeyay xiisad ka dhex oogantay, taasoo aan ku amaanaya buu yiri. madaxkii waxa uu baaqay hay'adaha siyaasadeed ee dalka oo uu ku jiro baarlamaanka inay xoogga saaraan shaqada degdega ah ee hortaala ee dhismaha hay'adaha qaran iyo hanaanka dhabaha loogu xaarayo nabad waarta, xasilooni iyo dib u heshiisiinaba. If key laws are not passed, Somalia will not achieve their dream for a new constitution and democratic elections in 2016. haddii buu yiri baarlamaanku uusan go'aano gaarin oo sharciyada lagama maarmaanka uusan ansixin, Soomaaliya ma gaarayso riyada ay higsanayso ee ah dastuur cusub haddii u dhacda oo ka qabsoonta Soomaaliya sanadka marka la gaaro 2016. waxa uu sheegay in booqashadii taariikhiga ahayd ee xubno ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku tageen Muqdisho bishii August ay tusaale u ahayd sida beesha caalamku ay uga go'an tahay wax ka qabashada Soomaaliya, horumarka oo la sii xoojiyana loo baahan yahay buu yiri. madaxkii ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal ka soo baxaya dhibaato iyo burbur, rajaduna ay tahay mid fiican, laakiin caqabaduhu ay weli hor yaalaan. Somalia is a country slowly waking from a terrible nightmare. Somalia's long night is not over, but the sky is at last getting lighter. waxa uu yiri Soomaaliya waa dal si tartiib uga soo baxaya wajigii naxdinta badnaa iyo dhibaatadii daba dheeraatay. habeenkii dheeraa ee Soomaaliya ma aha mid dhamaaday buu yiri, laakiin ugu dambeyntii cirku uu ka iftiin badan yahay sidii hore.
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay ayaa sheegay in si degdeg ah looga baahan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah inay ka wada shaqeeyaan taabagelinta ammaanka, horumarinta siyaasadda iyo howlaha bani'aadnimo ee Soomaaliya. Dadkay waxa uu yiri si arrintaasi loo xaqiijiyo waxa laga maarmaan ah aragti midaysan iyo iyadoo meel ay uga soo wada jeestaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo hogaamiyaashooda sidii isbedelka socda loo xoojin lahaa. Maxamed Olaad Xasan oo ku sugan Washington ayaa inoo soo koobiyay khudbadda uu ergeyga gaar